runtii Puntland sida qof walba ogsoon yahay dawlad dhiska Soomaaliya door weyn bay ka soo qaadatay waxay ku dartay wixii tabarteeda ah oo talo iyo xirfad iyo dhaqaale iyo maskax wax walba ah waxayna wili u taagan tahay inta ay inka badan inay ku darto waxa xaqiiqo ah dhismaha dawladnimadeena wili inuusan soo idlaan oo marayo marxalad lagu kala aragti duwan yahay ceebna ma ah laakiin waxa la rabaa in si sax ah doodaha kala duwan loo dhageysto oo hadday dadku iyagu isxallin waayaan cid xallisa loo doono Puntland nidaamka dawladnimada ee hadda noo jira ay ku socoto dood weyn bay ka qabtaa go'aanayna ka soo saartay ay dib uga taagan tahay iyadoo cuskanaysa xeerarka iyo dastuurada dalku leeyahay hadduu yahay kan federaalka ah iyo kan Puntlandba waxay ku salaysay dood maangal ah oo ay u aragto inay Soomaaliya mar labaad ku celinayso halis ay hore u soo martay waxay rabtaa inay doodeeda fagaaraha keento waxaan ka xumahay dawladda federaalka ah sida loo dhigay ama loogu heshiiyey iyo sida loogu dhaqmo inay aad u kala duwan tahay oo aad arkaysid waxyaabo iska hor imaanaya dhinaca kale doodahooda marmar aan dhageysano wasiirada iyo dawladdu waxay leedahay haddaan annaga dalkoo dhan xukumayn maxaan ka shaqaynaynaa waa gar in la dhageysto u baahan annaguna halka dawlad baan ku dhisnay oo dastuurka ku taal oo Puntland la yiraahdo oo Hirshabelle la yiraahdo oo wasiirro leh oo xildhibaano leh iyaguna haddii wax qabaneen maxay meesha ka qabanayaan waa su'aal kale oo iyadana meesha taala waxay u baahan tahay in la iswaafajiyo oo qolo walba sida dastuurka ku beelgaarka u dhigayo in ay tahay inay qolo walba heer iyo awoodo mucayan ay leedahay oo la rabo inay ku shaqeyso haddii mid walba midda kale u diido awoodda iyadu leedahay waxa ku xiga isma aqoonsanin haddii la isdhaho isma aqoonsanin waynu garanaynaa wixii aan ka soo marnay laba kelmadood oo aad caan u ahaa xilligii hogaamiyaashu ay jiri jireen kooxaha ma aqoonsani iyo markii qayb la isu geeyo looma dhamma ayaa iyadana imaanaysa oo khatarteeda leh marka halkaas waxaa ka muuqata culays runtii doodii maalintii dhoweed aan meesha ka sheegay waxaa ka dhashay in dad badan oo odayaal ah oo mas'uuliyiin ahaa oo qaybtood siyaasiyiin hore ahaayeen qaarkood ay gaadheen waare uu ka mid yahay iyo wasiirro hore ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore la taliyaal dawladeed dad aan isku malaynaya inay mug iyo miisaan mujtamaca Soomaaliyeed ku leeyihiin maraan dood ka yeelannay arrintaas waxaa ii muuqatay inay dadkoo dhan toobayso laakiin ciddii bilaabi lahayd la leeyahay cidda bilaabaysa anuu hadda garan maayo cidda bilaabaysa dee gabadhii iyo wiilkii isguursado yaa bilaabaya ciyaarta ninkii dibigiisa la qale ahaa marka halkaas waxa u malaynaa qofka bilaabi door in la garanaye in la bilaabaysa u baahan tahay oo runta la isugu yimaado Puntland haddaan nahay waxaan rabnaa inaan qirno inaan wada hadal diyaar u nahay odayaal aan arkay waxaan u sheegay Puntland inay diyaar u tahay doodna qabto weliba ay jeceshaa meel fagaara in lagu wada hadlo qol qarsoodi aan lahayn haddaan khaldannahayna in la qabtaa la rabaa haddaan saxsannahayna in la ayidaan rabnaa hadday doodeeda jaban tahay doodda Puntland hadday jaban tahay Soomaalida kaleeto ayaa markhaanti u noqonaysa hadday saxsan tahayna in la isu garaabay u baahan tahay laakiin haddaan taa la aadin haddaad ogtihiin waddada Somaliland ay aaday oo markii la yiraahdo soo dhaweeyo wax ka qabtaba la sii eriyaayo khatarteeda leedahay Somaliland baabaroone haddana qayb baaba Soomaalinimadii laga sii saaray waa khatar kale soo korodhay arrimahaas talay u baahan tahay waxaan rabaa aniga madashaan oo dhan inaan u dhiibo inay ka soo taliyaan sidii Soomaaliya xal waara loogu heli lahaa Puntland waxay ka noqon doontaa hormuud
waxay diyaar u tahay isu keenidda Soomaaliya inay maskax iyo aqoon iyo dhaqaale inay ku bixisaan diyaar u nahay haddii lahayd anoo ku hadlayo magaca dowladda Puntland waxaan rabaa inaan idinku noqotaan kuwa arrintaas garwadeenka ka noqon kara haddii dhinacyada kale aan laga diidin annagu aynu ogolnahay Soomaalinimo aynu ku tuhmaynaa rag odayaal ah oo runtii intii mas'uuliyiinta ahayd oo is aragnay waxaan ku tuhmayaa inay hawshaas ka qumi karaan waxaas rajaynayaa waxa laga shaqeynaa inay noqon wax qol mugdiyo ku jira ee wax fagaaraha yaala ay noqdaan maxaa yeelay waayadan dambe siyaasadii waa macno beesh si kaleen u dhadhantay laba madaxa meel wada gelaya social media niman la yiraahdo markay arkaan inay isla fadhiyaan saas is yiraahdeen baa leeyahay inay is yiraahdeen xataa war looma ay waxa la abuurayaa marka aragti bulshadii oo dhan iska aaminayso aan sax ahayn kullay ragga media arrimahaas inaa kala hadasheen ma aqaan doodiina inay ku jirtay in kale kullay waa isleeyahay sugnaanta wararku inay muhiim tahay masawirada iyo dadka wajiyadooda iyo marmar waa laga cabirtaa inay isku faraxsan yihiin inay maaragtay isku xanaaqsan yihiin laakiin Soomaalidu markay isku timaado waa dad iska faraxsan oo sheekaysta marar waxaan xasuustaa shirarka ugu adag intaan galno annagoo qoslayna haddana aan soo baxno la yiraahdo way isfahmeen laakiin aan la isfahmin maalinta labaadna la arko marka qosolka iyo caradu mar walba ma aha waxa wajiga ku yaala kaliya xaqiiqadu way ka fog tahay marka waxaan rajaynayaa insha Allah idinkoo mahadsan dadaalka faraha badan aad geliseen waqtiga aad iyo shaqooyinka ka soo tagteen inaad u hurteen inaad dadkiina dhaxal reeb u samaysaan oo aad maskaxdiina tuujisaan oo aan rajaynayo inay noqon doonaan wax lagu naaloodo